بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، أحبكم في الله. ومسلسل كي نوسو سعودي كونا سابسنا قصوين كي صحيحة أها صحيحين كسقنا بخاري يا مسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كلمة إنه horta kelimada waa kelimadii 4 iyo 10 waxay la magac baxday maxaad ii ceebaysay qisadani waa qiso ajaa'ib badan weeye bal qisada ila dhageyso. Jaabir bin Abdullah saxaabiga jaliilka ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wuxuu yiri markii dagaalkii la galayay ahzaab أما لو يقانو غزوة خندق لو يقانو صحابادو إيا نبي قبآد إيا آد بي أقاد شيسنايين وحان أركيبو يري نبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلوشي سوء نبرك كتنكتي قاد شدرادت سبحان الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. وان سول لابتي بو يري غوريغي iyo xaaskaygi ayaan ku soo noqday. xaaskaygi waxaan ku iri wax raashin ah guriga ma yaala. waxaan soo arkay buu yiri nabigeeni alayhi الصلاة والسلام oo gaajo daraadeed calooshu ay dhabarka ku dhigtay baan soo arkay. waxay ii soo bixisay qandi yar wax yar oo shaciir ah ama qabandi ah ayay ii soo saartay. waxaa kale oo ay tiri waxar yar ilmo yar oo waxar yar ah ayaa guriga noo joogta ayadana waxarta yar ee waxaraha yar yar ee guriga lagu hayo. wuxuu yiri Jaabir waan qowracay buu yiri waxartii yarta ahayd baan qowracay shaciirtii iyo qabandidii yaraydna waan shiiday kadibna waxaan ku iri buu yiri noo kari hilibkan tanna nooga dhig mataqaanaa bur iyo wax lamid iyo laxoox iyo canjeelo iyo kibis iyo wax lagu cuno nooga dhig. wuxuu yiri marka aan soo dhaqaaqay ayay ila hadashay. waxay tiri ha i ceebaynin. waxay tiri ragga ha igu ceebaynin. يقضوا مالين tirada maalintaa joogtay khandaq. waxay tiri rasuulka ha igu ceebaynin nabiga iyo saxaabada ha igu ceebaynin. Jaabir wuxuu yiri nabigaan u imid sallallahu alayhi wasallam waxaan ku iri yaa rasuul allah alayhi الصلاة والسلام waxaan ka adkaysan waayay gaajada ku haysa. gurigan ku laabtay xaaskaygii baan weydiiyey bal wax la cuno guriga inuu yaallo. waxaanu helay wax yar oo dhuubka un la eg oo bur ah ama shaciira iyo waxar yar oo guriga noo joogtay labada ayaanu helay. waxaan rasuulka ilaahay oo rabaa adiga iyo dhowr qof oon badnayn in aad mataqaanaa ay ku soo raacaan ayaan doonayaa rasuulka ilaahayow sallallahu alayhi wasallam adiga iyo dhowr qof. halkaas Jaabir markuu arintii marinayo nabigu marka waa dhawaaqay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka dhufaysyada ku jira ee qodayow dadka dhufaysyada ku jira ee qodayow Jaabir bin Abdullah ayaa noo sameeyay martiqaad ina keena kulligiin. ya allah inna Jaabiran
قد صنع لنا سؤرا جابر با وحو نو سميي مرتقاد أيو نو سميي كلين إماذا أيو نبي يلي صلى الله عليه وآله وسلم جابرنا انتو ايا ريب وحو كيري يان ديكسيغا دبكا لغدا تشينين عنشيرada iyo laxooxdana halayla sugo kadibna jaabir orod buu isa sii daayay xaaskiisii buu u tegay wuxuuna ku yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam waa soo socdaa iyo dhammaan saxaabadii oo dhan oon qofna ka maqnayn wixii meesha joogay oo dhan oo godka qodi jiro mataqaana kumanaana ayaa mataqaana ii keen boqolaala ayaa maxaa la yidhaahdaa soo socda kadib baa waxay tidhi way canaanato bika wa bika bay tidhi waxa allaha kugu ridiyo sida allaha kaa dhige maxaad ii ceebaysay bay tidhi maxaad ii ceebaysay waa halku dhagga aan kelimada magac ooga dhignay maxaad ii ceebaysay haddii ay marti kuu imaanayso hadday marti kuu imaanayso mu'miniina ilaahay baa barako gelinaya cuntadaada maxaad ii ceebaysay allahu akbar jaabir wuxuu yidhi waan sheegay fariintii aad i fartay nabigaan u sheegay sala allahu calay wasalam waxaan ku rasuulka ilaahayow wax yar oo maxaa la yidhahdaa laxoox ah iyo neef yaroo adhi ah ayaan sameeyey adiga iyo dhowr qof kaalaya ayaan idhi nabigu marka waa yimi sal ly salam nabiga candhuuftiisii barakaysnayd ayuu raashinkii ku tufay calayhi alsalaatu wassalaam intabih indhaha kala fur markii lagu yidhahdo nabiga candhuuftiisa iska ilaali in aad jidhkaaga wax dareento nabiga baraka ayuu jidhkii ilaahay geliyey dhididkiisu barfuum buu ahaa candhuuftiisuna barakay ahayd sala allahu alayhi waaalihi wasalam waan ka sheekayn doonaa ama waan ka sheekaynay mucjizaadka nabiga 18 xalaqo ayaa youtube-ka ku jirta oo 18 xalaqo oon u bixiyey difaaca nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo intaasoo ilaa 5 kale oo mucjizaadka nabiga ah waad ka raadin kartaa youtube-ka biidnillahi tabaaraka wa tacaala maxaa dhacay marka waxaa dhacay nabigu sallallahu alayhi wasallam asagaa digsigii guraya oo maraqii iyo mataqaanaa canjeeradii isku daraya wa wallah wuxuu yidhi 10 ha la igu soo daayo allahu akbar 10 ha la igu soo daaya ragga yaa allah 10 markay cunaan 10 kale 10 markay dhargaan 10 kale 10 markay dhargaan 10 kale 10 markay dhargaan 10 kale yaa ka warrama axibaa'i fillah rasuulka barakadiisa sala allahu alayhi waaalihi wasalam gabadhiina waxay tiri jaabir xaaskiisii maxaad ii ceebaysay yaa waxaa ka qarsoonaa barakada nabiga sala allahu alayhi waaalihi wasalam maxaa dhacay ayadoo cuntadii sidii canjeeradii loo dubayo raashinkii iyo macal hilibkiisii iyo maraqiisina sidii ay u buuxaan ayaa raggii wada dhargeen oo kadib ay ku wada noqdeen dhufayskii ay qodayeen uxibukum fillah ilaahay daraadii baan idin jeclahay waxaan rabaa inaad ii sheego cuntadaa asbuuc kadib baa la cunayay barakada nabiga sal alla alay salam marar kalena waan ka warramaynaa bes hal qodob unaan ku khatimo barakadaa nabigay khaas ku ahayd sal ly slam wadaad intuu yimaado yirahdo candhuuftayda barakaysta waxaan leenahay arrintaa nebi maxamed bay khaas ku ahayd calayhi asalaatu wassalaam uxibukum fillah inta aanu kaga kulmayno xalaqada 15 waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah wa uxibukum fillah wassalaamu calaykum saluu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam berri waa jumco salliga nabiga hala badiyo man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha 10